عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولا لا إسلام كملوا البعض جوكتان وحن فرينتان أدريا ضمان ولا لا صوماليات مضحدة إلا يو ضدك صوماليات أيام فرينتان أدريا وحن لا هاي مدة دور يو صدن سنة أيا ولا ليال وحين اسكت ليني قبيل يو وحنا لو جوجين ولا ليال مانت وحينو قادني وضوء آد وناكسن waxaynoo fiican maanta inaynu ku dadaalno waxbarashada inaan ku dadaalno jahliga waxa laga baxaa in wax la barto jahligu waxa laga baxaa waxbarashada ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun qofku wax bartay iyo qofkan wax baran ma simayn oo macnaheedu ay tahay ma sibno marka ummaddu markay wax barato wax badan baa u soo baxayo maanta walaalayaal waxaad aragtaan caasimadii inay soo noolaanayso bilicdeeda uu soo noolaanayo quruxdeeda ay soo laabanayso ummadii inay daaleen oo dagaal ka daaleen oo u soo laabteen ummaddu waxaad arkaysaa nabadgelyada iyo horumarka inay rabaan guriyihii dhisanayaan waxa weeyaan businessyadii emailihii ay dhisanayaan ayaad u jeedaan waxaan leeyahay aniga ummadda shacbiga Soomaaliyeed waxaan leeyahay gadaal yaa loo laabanin ee hore aan u socono si aan adduunkan u gaarno ولا ليال مركو نبض اللي هلو ماشي اللي قلتو كان أي وحاويان ويوناكساناني عبادة دي بفرضانيسو إلا صوما فرضانيسو إن صلاة دي لتكدا فرضانيسو إلا سكو إمادا فرضانيسو لكن هدي ماشي قبيالات دي مادو وحاويان اسكو قود دي إمادو ودادك عبسي إن لس عبسي قليو ودادك إناي آموسان أي إمادان أي دادك عبسي أدي أي هدلان والو حرا يامس والو ديري أي إمادو دادك وحاويان gadaal bay u guranayaan caburin bay ku jirayaan waxaan leeyahay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha wadankeena Xasan Cali Khayre waxaan leeyahay horumarka ay wadanka u soo hoojiyeen Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka awaal mariyo waxaad sameeyeen waa wixii loo baahnaa oo ummadda Soomaaliyeed ay sugayeen oo idinka sugayeen madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed markii la dooranayay waxaan ku jiraa dadkii habeenkii ordayay farxad la orday wixii aan u ordaynayna waan helnay waxa weeyaan dadka waxa jira qof markii wax la sameeyo oo qofku uu wanaag sameeynayo oo uusan u jeedin xumaan u jeedo dadna waxaad aragtaa ayagoo wixina aysan u jeedin oo hadana wanaagina aysan arkeenin anagu waxaynu ka mid nahay ummadda Soomaaliyeed dhalinyarta Soomaaliyeed wadanka jooga wax bartay hadana waxa weeyaan bogaadinayo inay nabadgelyada marka walaalayaal ummadda shacbiga Soomaaliyeed waxaan aan leeyahay horumarka aynu dhamaanteeni dalka shalay anaga duminay maanta anaga aynu dhisano dalka shalay anaga duminay maanta anaga aynu dhisano dal iyo dibad aynu ka imaano dalkeeni hooye aynu dhisano ereygan aan maanta aan idin sheegayo kaliya uma aanan soo duubin inay dadka aan aan u sheego aan u wacyi geliyo waxaan u soo duubay qof waliba oo Soomaaliyeed wadanimada ay qalbigiisa ay ku jirto inuu ogaado inay tahay horumarka iyo nabadgelyada inay tahay qof waliba oo shaqeysto iyo madaxweynihii iyo dadkii la doorto in waxa weeyaan la adeeco oo la daba socdo nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri ummad ma hagaagayso yaani ummad hoog iyo halaag baa ku dhacayo markii qofka ay doortaan ay caayaan oo ay waxa weeyaan nacladaan marka walaalayaal Soomaalida markii maanta lagu doorto waa ku bumbuuninayaan labadoo bil marka joogtid kan garguurta waaye kan qoslaayo waaye kan jiifo waaye kan safar waaye ay dhahayaan laakiin uma jeedaan wixii la qabanayo wadanka wixii la qabtay waa loo jeedaa waxaynu leenahay anagoo ah ummadda dhalinyarta Soomaaliyeed meel walba aynu joogno dhalinyaro wadankeena anaga leh aynu dhisano السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.